waxaa kaloo caddayn u ah dadku waa wada og yihiin takaaliiftu inay u baahan tahay qaangaarnimo oo 8 jir ama 9 jir hadduu xataa diinta islaamka ka baxo inaan la dili karin sidoo kale qofkii bakhti soo cuna ciqaab الدين حياة. بسم الله الرحمن الرحيم. arrinta xawaadley waxay arrintu dhaxtaal dad qaraaba oo isku dagaana mana ayan diriri jirin laakiin waxaa keenay waqtigan dagaalka in lagu kala duwanaaday caqiidada waxaana sunno ah caqiidada saxda ah dadka haysta iyo dadka caadooyinkii hore ilaalsanaya inay isqabtaan oo diriraan waxaana dirirta bilaabi jiray qolada ka baqaysa in caadadii hore laga guuro arrintan waa baabkaas waxay rabeen inay dadka caadooyinkii hore ka tegay magaalada ka bixiyaan masjidka iyo dugsigana ka gubaan markaabuu shaydaanku u qurxiyey inay makriga intaa la eg falaan intay wiil ka dilaan yidhaahdaan aabbaha baa ku dilay hilib ayeeyo laga soo cunay hadday arrintu runtahay aabbaha keliya bay ku ekaan lahayd maxaa masaajidka loo gubay maxaa dugsiga qur'aanka loo baabi'iyey maxaa dad aan warhayn loo xirxiray waxaa kaloo caddayn u ah dadku waa wada og yihiin takaaliiftu inay u baahan tahay qaangaarnimo oo 8 jir ama 9 jir hadduu xataa diinta islaamka ka baxo inaan la dili karin sidoo kale qofkii bakhti soo cuna ciqaab dil ah sharcigu uma yeelin xataa hadduu qof weyn yahay sidee loogu dilayaa saqiir soo cunay cunno uu xalaal u arkayo ama uusan kala aqoon xalaal iyo xaaraan arrintu waa mid lagu doonayay sidii masjidka loo dumin lahaa dadka ku tukadana loo qixin lahaa waxaanse la ogayn tirada dadka soo abaabulay makriga intaa la eg laakiin rabbi kama qarsoona inuu ku kashifo adduunkana waa awoodaa walaa yaxiiqu almakru sayyi'u ilaa biahlih makriga xun kuma laabanayo ilaa ehelkii soo abaabulay mooyaane waxaa yaab leh sida looga tegay inuu wax la hubsado oo shacab iyo dawlad iyo warbaahinba wada sheegayaan qadiyad aan loo hayn hal markhaati ama qirasho dembi wa fi lxadiid kafaa bilmar'i kadiban an yuxaddita bikulli maa samic qofka waxaa been ugu filan inuu ka sheekeeyo wax walboo uu maqlay tan kale kirishtaanka iyo yuhuudda iyo mulxidiintuba waxay yaqaaniin inaan cadaaladda looga tegi karin qofkan baa diin nagu khilaafsan sidee u garan waayeen dad islaam isku tirinaya arrintaas sow markhaati kama aha inuu islaamku noqday wax la sheegto oo aan lagu dhaqmayn marka nin arrinta la buunbuuninayo inay been tahay ogaa baatixahan tiriyey xaqiiqada taabanaya wuxuuna ugu magacdaray xawaadley xawaadley xanuun baa ka jira iyo xumaan weyne xawaadley xanuun baa ka jira iyo xumaan weyne nin xaqiiqa doono oo cilmiga haysta xadhiggiisa xaakimkii ilaahiis rabiya xarafka diintiisa xumaatada shirkiga diidan iyo xaaldarrida taalla xumaatada shirkiga diidan iyo xaaldarrida taalla isxilqaamayoo reer tolkii xaqa u sheegaaya xayndaabka tawxiidka iyo xeradii geynaaya shirkiga xoora mooyee nimaan xanafi kaa raacin maxaa lagu xastaa waa jahliga xaal u gooniyah inkastoo makriga xoogga badan xarigga loo giijay inkastoo xabiibkii yaraa xeelad lagu dhaafshay inkastoo xabsiga lagu ridoo xorriyo loo diiday guushu waa xaggiisee ma oga xulafo shaydaane xawaadley xaqsoor kama jiriyo xaakim caadilehe xilkas kama u talinoo cilmiga laguma xaajoone xaqiiqsada ma garan waalid baan inankii xooreene xawda kama u gooyeen saqiir xubin jirkiisii waa xeelo diintaa xaqa ah lagu xumeeyaaye waa reero xadan oo shirkigu aastay xididkiiye waa niman xaraar looga dhigay xarigga tawxiide xasad baa indhaha tuuraye xaqa ma waayeene xeeladaa abuujahalba waa ka xarragaysnaaye xeeladaa abuujahalba waa ka xarragaysnaaye inkastuu xumaayoo islaam xariggii goynaayey xarbi toose mooyee carruurkaama xadahayne masjid xaabo uma shidin ilaah lagu xusuustaaye
xeeladda abuujahalba waa ka xarragaysnaaye inkastuu xumaayoo islaam xariggii goynaayey xarbi toosa mooyee carruurkaama xadahayne masjid xaabo uma shidin ilaah lagu xusuustaaye